senator cabdi xaashi cabdulaahi ayaa mar kale ku guuleystay guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Hadda waa kuma cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu ku dhashay Baabalaaya Itoobiya sanadkii 1946 waxbarasho 1964 ilaa 1968 dugsiga sare ee Mahadina Alama Harera ayuu ka baxay 1975 ilaa 1977 kuliyadda siyaasadda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ayuu ka baxay 1980 macadka maamulka iyo maareynta ee SIDM ee Muqdisho ayuu ka tirsanaa 1985 ilaa 1990 kuliyadda dhaqaalaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayuu ka baxay shaqo 1972 ilaa 1974 macani ka tirsan dugsiga Ceel Jaalle ayuu ka mid ahaa 1974 ilaa 1975 qasnajiga guud ee wakaaladda ONIT ee Muqdisho ayuu ka mid ahaa 1977 ilaa 1979 xogayaha xarumaha waxbarashada UDHKS ayuu ka tirsanaa 1979 ilaa 1980 kaaliyaha koowaad ee gobolka Waqooyi Bari ee Hargeysa ayuu ka mid ahaa 1979 ilaa 1980 gudoomiyaha degmada Marka ayuu soo noqday 1981 ilaa 1990 maareeyaha guud ee golaha murtida iyo madadaalada ee National Theatre ayuu soo noqday 1979 ilaa 1990 xubin ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayuu noqday 1991 ilaa 1992 agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ayuu soo noqday 1992 ilaa 1996 agaasimaha maareeyaha hay'adda African Action ayuu soo noqday 1997 ilaa 2004 agaasimaha maareynta tubta nabadda ayuu soo noqday 2004 ilaa 2009 xubin ka tirsan baarlamaanka ayuu soo noqday 2005 ilaa 2007 wasiirka hidaha iyo dhaqanka ayuu noqday 2008 ilaa 2009 wasiirka caafimaadka ayuu soo noqday 2012 ilaa 2016 xubin ka tirsan iyo gudoomiyaha guddiga warfaafinta ee golaha shacabka ayuu noqday asaga oo 2017 noqday gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. bishaaro macamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM fiiro gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM mahadsanid.